Domington oo ah noolo mala awaal ah oo ku jiray filimka Harry Potter oo ilaalinaya xabsiga lagu magacaabo Azkaban. sidoo kale noolahan wuxuu kala baxaa dadka maskaxdooda xusuusihii ugu wanaagsanaa wuxuuna ugu tagayaa xusuusihii ugu xumaa. dabcan way ogyihiin inta daawatay filimkan. ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. mahadsanid. filimka lagu magacaabo Harry Potter waxa uu ka sheekeynayaa wiil yar oo agoon ah waalidkiisa ka dhaxlaya awoodo sixir oo waaweyn oo aan caadi ahayn. waxaa laga yaabaa inaan dhammaanteen horay u maqalnay Harry Potter, laakiin ma naqaano inteena badan shakhsiyadda ka dambaysay ee soo saartay Harry Potter. intaan usii gudagelin muuqaalka, fadlan like garee. mahadsanid. J.K. Rowling waa qoraayadda ugu caansan uguna maalqabeynsan adduunka. muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa qisada J.K. Rowling oo gudaheeda ka buuxaan cabashooyin aad u badan iyo sida ay ku awooday iyada oo ku jirtay maalmaheeda ugu adkaa ee nolosha in ay aliftay mid ka mid ah filimaanta ugu caansan adduunka uguna iibsiga badan. waxay dhalatay qoraayaddan 31 Juulaay 1965. waxay ku dhalatay tuulo lagu magacaabo Yeed oo ku taala dalka England. aabbaheeda waxa uu ahaa injineer ka shaqeeya diyaaradaha, hooyadeedana waxa ay ka shaqayn jirtay goobaha kemistriga ee dowladda. Joanne waxa ay sheegtay in ay yaraanteeda ay soo martay dhibaatooyin aad u adag, xanuun halis ah oo hooyadeeda ku dhacay awgiisa kaasoo aad ugu niyad jabiyey. waalidiinteeda waxa ay ahaayeen kuwa aad u jecel buugaagta iyo akhrintooda. marka ay soo barbaartay waxay indhaha ku qaaday akhrinta buugaagta hooyadeeda iyo aabbaheeda. Joanne marka ay jirtay 12 sano waxa ay qortay buuggeedii ugu horeeyay iyo riwaayadeeda ugu horeysay iyada oo da'deeda aad ay u yareed. Joanne waxa ay jaamacadda u gashay in ay barato luqadda Isbaanishka, waxayna dhammaysay jaamacadda 1986. waxay mar la shaqaysay mid ka mid ah hay'adaha dowladda taasoo ay u qaabilsaneyd tarjumaadda iyada oo haysatay shaqo muhiim ah kana helaysay dhaqaale sareeyay. waxay ahayd mid aan ku faraxsanayn shaqadaas, waxayna sheegtay in ay ahayd shaqadii ugu xumeed ay qabatay weligeeda. inta ay ku jirtay shaqadeeda waxa ay waqtigeeda ugu badan ku bixin jirtay qorista buugaagta iyo sheekooyinka. waxay ahayd mid ku soo bandhigta buugaagteeda kulamada iyo shirarka muhiimka ah ay lahaayeen dadka ay isla shaqeeyaan. maalin maalmaha ka mid ah sanadka markuu ahaa 1990, Joanne waxa ay tariin ku sugaysay boosteejada tariinka. waxaa ka soo daahay tariinkii. waxaa isla markiiba ku soo dhacday maskaxdeeda fikraddii Harry Potter. waxay sheegtay iyada oo aan ogeyn sababta ku kaliftay fikraddaani inay iska qortay filimkaas oo qabsaday adduunka oo dhan. markii ay gurigeeda tagtay waxa ay ku dhaqaaqday qoristii waxyaabihii ay ku soo bandhigi lahayd filimkeeda cusub. waxa ayna ku qaadatay muddo 5 sano ah wayna dhammaystirtay. balse inta ay ku guda jirtay qaybtii ugu horeysay ee filimka Harry Potter waxay la kulantay dhibaatooyinkii ugu weynaa ee nolosheeda oo ahaa dhimashada hooyadeeda oo xanuunsaneed sannado badan. Joanne markii ay hooyadeeda dhimatay waxay iskaga tagtay shaqadeeda waxayna u safartay dalka Boortaqiiska si ay halkaas ugu noqoto maclimad dhigta Ingiriiska. waxayna halkaas ku baratay nin saxafi ahaa oo u dhashtay dalkaas Boortaqiiska, magaciisana ahaa George Arnantas. barashadaas waxaa ka abuurmay jacayl aad u baaxad weyn kaasoo ugu dambeyn sababay in ay isguursadaan. muddo kadib waxay u dhashay gabar lagu magacaabo Jessica. guurkooda marka uu ka soo wareegtay 1 sano, Joanne waa uu ka tagay ninkeeda iyada oo kaliya ayaa qaaday mas'uuliyadda iyo barbaarinta gabadheeda. intaas kadib waxay ku soo laabatay Joanne dalka Ingiriiska. waxay ku nooleed nolol tan ugu adag, waxayna ahayd mid aan shaqaynin. waxayna ku dhawaatay in ay noqoto darbijiif haddaysan jiri lahayn lacagta ay siinaysay dowladda. inta ay ku guda jirtay waqtigaas adag waxay ku dhawaatay in ay isdisho oo ay goyso nafsadeeda, balse uma suuro gelin. hase ahaatee dhibaatooyinkaas kama reebin in ay qorto waxyaabihii ay xiisayn jirtay oo ahaa qorista buugaagta iyo sheekooyinka Harry Potter iyada oo ku qoraysay aalad yar oo qadiimi ahayd oo ay lahaayeen waalidkeeda. 1995 ayay ahayd markii ay dhammaysay qaybtii ugu horeysay filimka Harry Potter, waxayna magac ugu dhigtay Harry Potter and Philosopher's Stone. laakiin markii ay la wadaagtay dadka faafiya buugaagta dhammaantooda way ka diideen inay faafiyaan buuggeeda marka laga reebo hal nin oo lagu magacaabo Bob Lomisberry ayaa qaabilay dalabkeeda. asagana waxa uu sharad kaga dhigay inaysan ku qorin magaceeda buugga dushiisa, asaga oo ka cabsanayay inay iibsan waayaan dadka haddii ay arkaan in ay qortay buuggan qof dumar ah. intaas kadib Joanne way aqbashay
iyada oo buuggeeda dushiisa ku qortay J.K. Rowling. Sidaas ayaana lagu soo faafiyey riwaayadii ugu horeeyey ee Harry Potter Philosopher's Stone, waxaana filimkan la soo saaray qaybtiisii labaad sanadka markuu ahaa 1997 bishii July, waxaana loogu magac daray Harry Potter and the Chamber of Secrets. buuggan qaybtiisii saddexaad waxaa la soo saaray sanadka markuu ahaa 1999 iyada oo magac loogu dhigay Harry Potter and Prisoner of Azkaban. buugaagtan waxay soo xareeyeen lacago aad u fara badan, waxaana la daawacay in ka badan 35 milyan oo jeer, waxaana lagu tarjumay in ka badan 35 luqadood. waxaa la soo saaray 2000 buuggii afaraad ee filimkii Harry Potter oo asagana magaciisa laga dhigay Harry Potter and Goblet of Fire ayaa jabiyey iskooradii wakhtigaas jiray ee buugaagta, waxa uuna noqday buugga loogu iibsiga badan yahay 24 saacadood gudahooda. 2003 ayaa la soo saaray buuggii shanaad ee filimkii Harry Potter, kadibna waxaa ku xigay buuggii lixaad asaga oo la soo saaray sanadka marka uu ahaa 2005. maalintii ugu horeysay waxaa la gatay 6.9 milyan oo daawacaad ah. buuggii ugu dambeeyey ee Harry Potter waxaa la soo saaray sanadka marka uu ahaa 2007 asaga oo noqday buugga loogu iibsiga badan yahay dhanka internetka. arrinta ka dhigtay Joanne in ay ka duwanaato qoraayaasha kale kaliya ma ahan hab qoraalkeeda ee waxay ku dartaa sheekooyinkeeda waxyaabaha dhabta ahaa ee ku dhacay nolosheeda. Joanne waxay aliftay maalmaheedii xumaa noolo ay ugu magacaawday Domington oo ah noolo mala awaal ah oo ku jiray filimka Harry Potter oo ilaalinaya xabsiga lagu magacaabo Azkaban. sidoo kale noolahan wuxuu kala baxaa dadka maskaxdooda xusuusihii u wanaagsanaa wuxuuna ugu tagayaa xusuusihii ugu xumaa. dabcan way ogyihiin inta daawatay filimkan guusha ay gaartay Joanne intaan kuma istaagin ee waxaa soo dalbatay shirkadda lagu magacaabo Warner Bros Pictures oo ah shirkad samaysa filimada. waxaa laga sameeyey qoraaladeeda 8 filim, waxayna ka gaartay filimada lagu magacaabo Harry Potter guulo waaweyn iyada oo laga sameeyey lacaga gaaraya 7.7 bilyan oo dollar. sidoo kale waxay ka qayb qaadatay qoraallo filimo kale oo uu ka mid yahay Fantastic Beasts. Joanne run ahaantii waa gabar ku dayasho mudan dadaalka ay samaysay iyo halgankii nolosha ay ku gaartay guusha sare darteeda. haddaba daawade, sideed u aragtaa fikirkan ka soo baxay Joanne? adigu sama samayn lahayd sida ay samaysay oo kale, weliba adiga oo wakhtigan adag ku sugan? fikirkaagu waa inoo muhiim. calaa kulli xaal, barnaamijkeena intaas ayaan ku ekeynaynaa. waa inoo kulanti dambe iyo barnaamij xiise badan. fii amaanillah.